Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Revida Architecture. Halkan waxaan ku baran doonaa qayb kale oo muhiim ah oo ka mid ah dheelitirka 2D planiska, taas oo si qurux badan u naqashi doonta naqshadaada, waana inaad calaamado ama annotations u qaas ah siiso albaabada iyo daaqadaha guriga, kuwaas oo hadhow kaa saacidi doona inaad si sahlan ku hesho schedule-ka daaqadaha iyo albaabada, oo hadhow ku sii doona inaad si ijmaali ah u hesho tirada guud ee daaqadaha iyo albaabada uu projectigu u baahan yahay iyo weliba cabiradooda oo dhammaystiran. Fadlan ha naga iloobin inaad saarta like video-ga waa hadduu ku deeqee. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay ha iska iloobin subscribe inaad saarata channelka, waa meel aad ka heli doonto cashiro joogto ah oo wax kugu soo kordhin doona waa haddaadan u aragto. Okay, marka hore gurigeena sida aan dareemaynay waa labadaas qaybood 3Ds iyo aan soo sameynay. Haddaad nagu cusub tahay waxaan kugula talinayaa inaad soo daawato waqtina aad geliso. Waxaan dareemayaa in wax badan ka anfici doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Okay, ground floor kana gee. Waxaan rabnaa marka inaan irdaha samayno. Kood hore annotations aan u sameynaynaa, then schedule-ka irdahan diyaarinaynaa, haddana waxaan diyaarinaynaa doors and windows legendigooda noo diyaari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Sida loo calaameeyaa horta waxa calaamaha oo dhan waxaa laga helaa annotationska. Annotation ku dhufanaysaa qaybtan tagiska ayaan isticmaalaynaa. Kan oo ah tag by category iyo tag all kan labadan waan isticmaali doonaa. kuwan kale beam annotation ku jira beamska iyo markii structure-ka qaybahaas waa annotationskooda. multi category material tag jira oo markii section kala sameynayo materialka luuqa room tagi aan hor usoo sameynay oo qaybtan soo dhex galo kana hadda qaybtan thread numberka iyo multi reparka oo biraha markii sectionka lagu sameeyo structure-ka ayaa lagu isticmaalaa. Okay, marka waxaan qaadanaynaa labadan horta isticmaalayna hadda anaga oo noqsay tag ku dhufanaysaa. Tag-ga waa wadataa. Tag-ga marka wuxuu leeyahay leather waxaa la calaamada xariijinta dheerta ee number 9 ku xiran. Intaadan saarin leather-ka naga reeb soo siisa waa ka albaabka waxaa ku qoran number 9. sidoo kale haddana annotate tag by category, haddana iridkaana waa ku dhufan karnaa isagana. Okay, sidoo kale wuxuu leeyahay annotation ku laabo tag all aan mar leedahay all objectives in current view door tagisa leedahay apply. Okay, hal mar wada calaamiyo waxa door iska hawda. Marka waxaan sameynaynaa annotation kan waan soo nidaaminaynaa kaliya leedahay edit type kan aan hal mar farta yarayno. farta maxaan ka dhignaa halkan text font-iga Arial narrow text size kan 1.5 nooga dhig width factor-ka 0.8 apply. Okay, kan iyo kan laas grab naga cun kan waxa leedahay move labadooda isla highlight gare aan sikino. halka waxaa gelisaa 1.8 load into project the existing version sidaasuu noqday. Okay, marka numberskan waa bedelina hal mar ku celi ladies family. numberkan kor dhufanaynaa, labelkan bedelina, mark labelkan waa bedelina, kan waa naga tuuraysaa type mark ku bedelinayna. soo geli halkan waxaa noo qortaa D1 waa bedelina. marka albaabkan oo kale waa ku dhufa kartaa. markaa ku dhufato edit type aa leedahay type mark halkan yaala waxaa noogu bedeli kartaa D1. doorkaas waa type markiisa waa D1 saas ku bedelaa. haddii kale hadda kan iyo kan iyo isleeyihiin waxay isla hal mar isbedelayaan. haddaa rabto double kaliya leedahay D2 hal mar isbedelayaan. wuxuu ku leeyahay parameter-kadana bedelaysaa macnaha markay aysan leedahay kuwan dhan oo isku type-ka waa u bedelay. albaabadii dhan oo noo ahaa meterka iyo gudaha ku jira dhan waa iswada bedeleen. kuwa musqulaha sidoo kale ayagana D3. saddexaas type ayaa qaybtan ku jirta. qaybta kale fast floor-ka tagaysaa markaa soo furto ayaa waxaa leedahay annotation tag all doors ku dhufanaysaa. halkaas tagta ku saarnato all objectives in current view apply. Okay, hal mar wada galayaan marka jakuan calaamad ka mar rabaan hore u soo bartay macnaha. waxaa gelinaa schedule-ka
schedule-ka laba qayb laga helo. waxaad dhigi kartaa view schedule halkaan ka geli kartaa. waxaad kaloo ka geli kartaa qaybtan oo ah project browser-ka ayaa waxaad dhigi kartaa schedule right click aad leedahay new schedule kadib aad dooranaysaa. marka qaybtan aan u isticmaalayaa view schedule quantities waxaan noo doortaa Doris kadib waxaa leedahay okay. maxaan soo gelinaa ku leeyahay marka level oo baahannahay halkaas ku dhufanaysaa oo add parameter. waxaan kaloo u baahannahay height-ka type maaga oo baahannahay isagana waxaan noogu dartaa county iyo wordiskan halkaan noogu koraan u qaadanaa halkaan aad ku dhufanaa kor u qaadi kartaa. okay level iyo height-ka width-ka type marka iyo county waxaa leedahay markaas. okay saan kugu soo baxay levelka ground floor-ka irdahana kaaga samaysan oo ay u dhamin hal xaba. okay halkaan waxaa nooga muuqda adoorka waxaan soo bedelin wali oo ah albaabadan labadan albaab waaweynka oo aanan magac siinin iyo midkaan asaga la midka. hadda lacala haddii albaabada aad u tiro badan yihiin oo kan oo kale aqooyso oo macnaha soo iloodina bedesho kale kor dhufanay waxaa leedahay highlight in model ku xadusina iridka waa kana ku leeyahay bedelisid kadib ku dhufo D4 isaga iyo saaxiibkiis bas isku bedelmayaan oo type ahaan ay islahaayeen directly lisaan isku bedelay. schedule markaa joogtid waxaa la isticmaalaa qaybtan sunduuqan aad loo isticmaalaa oo fieldigan waxaa samayn kartaa hadda haddaad rabto waxbaa kusoo dari kartaa. hadda waxaa kusoo dari karnaa oo kale haddaad rabno type-ka kusoo dari kartaa. markaa ku dhufato aadaa leedahay hoosuu ku aaday kor aa u qaadi kartaa meeshaas oo kale gii kartaa. okay type-ka akuu soo raaca. hadda type-ka kuwaan dhan waa noo bedelan yihiin oo type-kooda noo saxan yahay waa 1 mitir oo 2 mitir iyo 20 height-ka yahay saan nagu saxan yahay kan laakiin double output-kan ma fahmi karin iskaas ugu dhufanaysaa dad fahmi karin ku yeelanay kala soo editkan kan kale la midka ah qaybtan ku jiro waxaa la edit type rename double leaf class door. okay sidii magaciisa isku bedelay hal mar xaaladda saari kartaa geeska sidoo ku soo qabanayo kadib waxaad dhigi kartaa align center. door schedule for the entire project kan waxay ka bedeli kartaa font yaal dhigi kartaa waxay weynino halkaas soo fadhigi kartaa arial narrow ano dooraysa kuwan laftirkooda amar calaamin kartaa font arial narrow oo bold. okay albaabadan soo laabanayna ma anfacayaan iyo albaabka isku cabira inuu hal meel geeyaa isku dayina. waxaa samaynaysaa marka waxaa leedahay filter sorting and grouping leedahay sort by maxaa rabtaa inaad raacdo type-ka albaabka items instance-gan way ka qaadaysaa. okay leedahay waa israacin modelkan oo 80 lagu dhuftay 20 waxaa ka haystaa 5 xabo kan kilometer 20 6 xabo ka haysataa kana waa kana. sorting and grouping aad kartaa haddana meeshaan aan level ka dhigno saana ka dhigi kartaa haddii kale sidii hore ku xishii kartaa. markaas qaybtan maadaama kan uu laba floor ka dhaxeeyo oo ground-ka iyo fast-ga lagu wada helayo level ahaan magac uma qaadanayo. marka waxaad samayn kartaa oo calaameynaysaa waxaad dhigi kartaa maadaama aad u baahnayn height maadaama type-ka aad haysato uma baahnid floor. okay haddana waxaad tegaysaa sorting and grouping grand total totalkiina halkaas ku soo dhigay 14 albaab inaa haysataa. okay aan height noo dheh lacala waxaa rabtaa hadda schedule-kan only inuu ku yahay ground floor oo kala rabtaa. waxaa sameynaya markaas waxaad tegaysaa filterka waxaa leedahay filter by level equal ground floor. albaabada ground floor kaliya ku soo baxayo wuxuu ku yiri marka modelkan waxa ka wadataa 2 xabo ground floor-ka model 1 mitir lagu dhuftay 20 height-ka waxa ka wadataa 3 xabo diiwaankan sidoo kale hal xabo ka wadataa kulliya. marka filter nam CC hor noogu celi kana naga qari
intaan oo nooga filan tahay islaahayn albaabadii qaab macquul schedule-ku u haben. Okay, hadda waxaan bilaabaynaa marka Windows-ka. sida aan albaabada calaamadaha ugu sameynay horta daaqadaha waa inaan calaamad ugu sameynaa. waxaad tagaysaa annotation tag daaqada tag saas aan soo xareeyo kor dhufo edit type kan oo jagreynana labelka type mark inuu yahay waa inuu yahay type mark. okay xogaa size-ka oo yareynayna transparent no ahaato meeshaas tagastigan Arial narrow text size-ka 1.5 width factor-ka 0.8 loading project tagastiga bold ka dhigo okay ka waxaa leedahay annotation tag all Windows tag apply. okay wax window oo dhan ayuu ku saaraa laakiin waa inaad u dhoweysaa xogaa. sidoo kale first floor-kana number tag leedahay tag all window tags apply. okay ayana sidoo kale soo dhowo hal mar aan bedelina kan oo kale waxaa nooga dhigtaa W1 yes waxa dhan oo musqulaha dhan oo isku daaqad guriga oo wada bedelmayaan dhinacaanba. qaybahan kale tan oo kale waxaa nooga dhigtaa W2 guriga inta kasoo hartay waa isku wada mid sidaan dareemayo waxay dhan wada bedelmayn. okay sida kii kale leedahay waxaa leedahay view schedule and quantities Windows. okay leedahay waxaan soo gashanaa xogaa habeynayna nama habeysna levelkan ugu kormari waxaad tagtaa sorting grouping tab mark intan waxaad ka dhigtaa sort by level itemskan jack qaad grand totalkan total is on qaybtan formatting ka tagaydana count calculation totals. okay totalkaaga waa 16 xabo ground floor-kaaga mitir 20 lagu dhuftay 8 laba xabo haysata basi floor-kaaga tan sidoo kale mitir 20 lagu dhuftay 8 laba xabo haysata tan sidoo kale 7 xabo kana 5 xabo waa mitir 30 lagu dhuftay mitir 20 totalkaaga waa 16 xabo. kana kay totalka halkan waa keeni karnaa maxaa dhahay markaas formatting aymaanaysa county calculate total halkan waa ku soo dhigtaa iyadana waa taas 14. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هورين ولا سعون هذا ولا سعون وجنا الكسر سكريب سعره وهدي وقام في عام سنتين.